السلام عليكم أصحابتي شرفت بدن مرة هراي كادم بيسان الحمد لله أنا ودي في عنها هاي سويدن ولا صانع قضاء كينيا ولا إنت كستوقف كست سناب شات إنستغرام كي جلس صعدة الحمد لله دليل أنا نبض قوي سوي عليه سويدن أو صانع قضاء ما عندنا حاجة قبت فلوج ويريسوس كما أنا سميه فسحة هاي فسحة أنا ما بدي كده بهرجة بس كي هاي كل تعد كي أنا كم قدرتنا هرجة بهاي ما عندنا حاجة خبطة inaan aan banaanka soo aado kaligeyga aan jawidagas kasoo qaato on my own so taas iga qabad markii alxamdulillah inkasta hirgabiriska ka haayo laakiin it's not a big deal though so let's go meelaan saari baabuurka maalmahan sida aan Kenya ugu soo noqdo waxaan u maleynayaa baabuur wado dhan markiina uu iga dhumaba sababta dhan la wadaa inaan hilmaamay وصاكعة وحيريسا سوجي ورشاكة مش اسمها ديجي بالعبوها وصاكعة وحيريسا سوجي دي قرعة دي ذا عنا بعد القراع تفيني ريسا سكفرت عفيسة ده إيميليال عند الدراع كبعد التلفون اللي قربنا مع بعض كازمركا كيني وجري بنجي سرالكان شينا كسو قدي هولكيس عرفتين فنانada waxa laga soo gaday Primark khamaarkan wuxuu ka imaaday Kenya waxa soo gaday hot chocolate waxa wata Reese fruit wax la dhaho waxa kale wata cabitaan aniga soo qastaa inta soo shubtay cuz yes and I have Snickers with me and of course waxa wata waxiris oo canab because canab la aan mareen kabacdi waxa wata qaando oo kala qoran lahaa waxa ku xigo ma computer because waxiris aan qoran lahaa so hora la galina I have my glasses with me for one reason the purpose كوس قرحة كان يجرنا كيالي لو تلاقى مع another book ما أنت book كلا تبيها all of the how good vibes good life how self-love is the key to unlocking your greatness so we're about to unlock our greatness guys كاسا ودا إنك استعد كيني كي ماذا دست كسايان مابويا ودا وحاكا ودا my notebook and a pen so we're about to ina maskaxda kala furana meesha fantan view gana u jeedina this is on is beautiful guys beautiful words hada waay meesha soo qurxan tahay relaxing qorax saasta uma jirto because it's 10 o'clock in the morning right subax waa waliba so I'm closing beautiful guys so today's location waka tuuladeeda skeeros ka qorxanta saa u jeedin welcome to this little paradise of Toulouse saa u ogtihiin Kenya mar dhow ka imaade soo mabuy badan wata iyo chari ya Mombasa waxaan ka soo aruursaday waxaan soo qaaday like 5 kilo of my luggage wuxuu ahaay mabuy aad u jeclaa markaa faantan so maanta waxaan qoraalay ka rabaa so halkoo mail qoray rabaa mail ka soo qoraa intii ka sii quality igu xiran snapchat kayga badana you know guys I love reading so I've been horan bilaabay and there's a quote that I actually like and that quote say
the quotes aan waay marka aniga koleeta dadka badanana dadka oo kor jecelina markii akhrina u akhriimihi laakiin waa idii akhriya quotes kan I actually like it. So it says, the quote goes like, waxaa ku qoran marka, I realize the good, the bad and the downright ugly events are all a part of who I have become. I like to explain this. I mean, English kollegiin waa ka siisan kuleeta ma rabi aniga Englishkan inaan turjubaano. I am not a turjubaano. But anyways, it says that I realize, which hadda ku fikiro macnaheeda ay tahay qadar ilaahay. markii horta alxamdulillah waxa kasto ilaahay ku siiyana ku shukrisid is very important, guys. So alxamdulillah ala kulli shay. So bugan wuxuu ku soo xasuusinaa marka inaa xasuusnaatid wixii xun iyo wixii fiican iyo wixii wax kasto kugu dhaco nolosha markina in ilaahay ku qoray eedan gafi karin. Yeah, and whatever that it is that you shouldn't lose garaysid hope kaaga u dhahdid maxaa aniga anigu dhacday niyada iska jabisid oo depression ku aadid, because certain things in life marka wax badan aad ku fikirtid you get depressed. marka waxyaabaha qaarkood nolosha kugu dhacdo oo aad iyo aad ugu fikirto fikirkii ka tambadiya, I mean, you get depressed, and especially when you want to know why to everything happens in your life, like why did I trip? Yeah, because I was clumsy, because I was no, it doesn't happen like that. It's life. You take the good, you take the bad, you take the good, you take the not so good, you take everything that life has to offer you, and you just make your own best out of it. So bugana bilabe, and I'm not gonna lie to you guys, intaan hadda aan soo akhriste I like it. So and meel kasta aad gashid it has maxaa quote. Stop trying to impress people. Definitely impress yourself, strengthen yourself and test yourself. Be the best version of you that you can be, which is actually good to remember as well. For a comparison to other people is just a thief of joy. qofka binaadamka maanta markuu qof kale maanta nasbar dhigayo oo qofkan kale isku compare gareenayo adiga la depressed noqonaysa, because why ilaahay adigu ku abuuray sa adigu u taashido sa adiga taas dabeecadaada u tahay qof binaadam kale kula mid ma jiro. So you are unique on your own terms, you're unique on your own self, you're beautiful. She tried to convince me to stay and do the best I could, but in anger I argue with her even more. Anyways, I think I'm gonna continue in a bookiga ku akhristo maxaa la dhahaa goonidayda. I don't think, anyways, waxaan rajeynaa inaa xataa wax yaris inspire gareeye. So you want to actually read this book. It's a great book actually. I have heard wax badan oo fiican aan ka maqlin fahanteen, so that's why I'm reading it. Yeah, and dhibaatada aan qabo waxaa waay aniga dadka buugaagta oo batakaan maya maxaa la markii oo library maxaa lagu tabakaan ma wala hadda ka hor aan bartay suba tabakaliyo tabakaan kutubaan maan ka wadaa. Anyway, Soomaaliga marka qaarkood waa ii gafa ka dhaha meesha oo library-ga oo buugaagta laga soo qaato magaceeda waa soo xasuusan doonaa, asaas ku qosli doonaa arkaleeya. laakiin hadda intaan xasuusto waxaa waay library-ga ma ka soo qaatay, because library markaa ka soo qaatay have 4 weeks, and 4 weeks for me ma jirto sameeyaan jeclaa oo ursado oo iska jeclaa xataa asa buugaagta qaarkood iska carfayaan adoo caraftiisa. I don't know, it has a sense to it that I actually like it very much. So maxaa la dhahaa ma ka soo qaatay library because 4 weeks iguma filno. I like to take my time when I'm reading, yeah, and I like to just feel like free, that I can read whenever I want, so I don't have that pressure on me. Either way, aniga oo pressure aan dareemeynin waa ku dhameeya afartaas week gudaheeda, because wixii interesting markii ku yin you just go through it. Like waxaana jeclahay wixii aan ka helay camal qalin aan wataa hadda, like you can see qalin inta ku jiro. So waxyaabaha qaarkood aad iyo aad uga helay oo maskaxdeeda aan rabo inaan si fiican u galsho, I actually strike it underneath. waa strike gareyna kabacdi waxaan dhahaa that I would actually use in my life. This can be quite maxaa la dhahaa helpful. taas kalina maahan guys, Englishka arta luqad kasto artid inaad bartid maanta saa ku bari kartid waxaa waaye by reading.
taas kalina maan maanta inta hadaan ka helo eri aan weligay maqlin igu cusub oo English ah I strike it underneath hadhowtin waa isticmaalaa erigaasna waa google gareynaa waa macnihiisa soo baranayo wuxuu yahay wax laga wado and not only that waxaan isku dayaa from when I have learned the words from that day I actually try to put that words into my life guys so yeah tan kaleetana ay dhahayo waa ogaa dad badan oo jeclaan inay meel kaligooda aadaan iyo soo warwareegaan iyo you know oo kaliya aad jeclaan buuxaan adduunkan kowde trust me nothing is better than your own company guys adiga ina kaligaas la joogi kartid your thoughts la joogi kartid maskaxdaada la joogi kartid kaliga fikiri kartid maskaxdaada gali kartid min hebelan aada wax hebela soo sameynaa wax ka qurxoon male kaza waxa ku baranaysaa ina kaliga aan noolaa kartid dadna aad la noolaa kartid kasi qurxoonna male faante oo labada dhinacba enjoy gareey kartid ina dad la joogtid but you actually value ina waqtiga aas gelinaysid iyo naftaada aad daryeelaysid oo agtaada muhiim ay ka tahay I don't know why I'm preaching but guys yeah taas iga qaata guys wixii la igu talagalay inta ku sameeyo horta waa dhameystaa hadda saacada aan rabo waxa waaye guriga aada qada karsana and wala kala baxaa banaanka soo aaday meel nuur la dhahayo soo aadna jalata soo raxsanino جلاته وفوله كجرتا وكافيه إكرانا فانيلي واي Is there something xaafadeyda xaafad ku xigtaan jooga oo badana dadka banaanka ka imaad dalxiis ama loo imaado oo la dhaho nuura saanan uu qorxoon tahay waxa uu maleeyaa waaba hilmaamina idii sheego because guriga aade waa qadeeye waa hurde 2 saac oo soo kacay dharkaygan jiks ku soo siino inta jalaat u soo doonana marka qorax saastan uma jirto alxamdulillah is not very qorax badan which is good we like that so inta samarada imaana doona jirinta ka qaadayo oo ku geeyahay xagga oo inta ka qaadayo ku geeyahay xagga meeshaas marka waxa ku sameeysan kartaa waa grillay kartaa cunto ku cuni kartaa picnic ku sameeysan kartiin so meeshaas aan joognaa update ka saabsan magaalada saan qurxoon u jeedinay jalaatada galbihi waaye saakana kaliya meel jira hadana guriga aada intaan wareegi karno waa soo wareegin intaan cunuga burbursan karno waa soo burbursanay kowdhaha so we going home going waa daalanay liyaabina so niftuuraya aniga dhanaacta maxaan noqday so magaalada I can offer you warm embrace to make you feel my هذا حافظ على أهلي ليشكا جلاتة كسو بدنة ما معانا لس كسو درجية جلاتة عدلاء هذا إكرام نواتنا تن حدا دوس أيضا مربت ناس حتى سلام تو
dhimal meel ugu qorena ayada oo firdaro eg markino ayada YouTube ma aad ilaa ka cabsi gilirta